مرحبا شيخ لابد دقيقة وكوكو يرتا صدح كدغو كوكو ما هيستو لكن حد صومالي كصابسن أما التجربة وان كو هيستا بركة dadka Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool waa dad muslimiin ah boqolkiiba boqol wase gaaloobi karaan way gaaloobi karaan laakiin intaan ognahay wax cadeystay anigu ma hayo duwalka caalamka lagama helo dad yaani sidaas oo kala ah sida aan maqlay wala socodkay uu gaaban yahay مسلمين تلقوا مذهب أوفقوا مذهب شيعة هذا مذهب سنة لي صومالي وأهل السنة حدنا وحول نقاش واتش هاي وقال أن يركل فوقنا هاي وقال ذي دين تين السوق جارسيسي كيس كأفريقيا لما صار كلام يعلمتي قرني جي رجل ربنا الجومستان وإنما كالسوفية لها هاي دين تين السوق جارسيه وحي خير الله كعب المريو وحي كوخل ديهن الله كضعفه وحي هذا اللي قد قلنا علماء العضوات كمتها يبقى كسحة والنقاش إلا ستكفيرية مقروا حتى هوري وصول دقاق الشيخنا نينك اللي شيخ عبد القادر عكاشة يأتري مثلا قال ويؤفر ويسود ويان مسلمين تنوين أبيهن جديدية أيال لي لهذا وعكاشية هرتيسة أنا نينك عبد القادر عكاشة اللي لهذا تفسير مركان ليروب السوق اللي وقصو قاري أنا برعاد شوغانا بحان كده يستي كتاب صرفية markaan isu fiiriyo culimada aadu aad ka mid tahay diinta rabbi kitaab oo sunna ahana masaajidka eedkan kaga dhageystay hadday tahay diinta maxamediyada hadday tahay alle iyo hadday nusuus tahayba wax aad isku khilaafsantii ma jiro ma arko oo ma mudno in sidaa loo tacyiiriyo laakiin wixii watu nadar ah oo ama raganimo oo isku haysaan in aad hoos u wada hadashaan baan qabaa laakiin suufiyada sida qaadiriyada oo kale iyagoo wuxuu niqaash ay noo dhaxeeyo masaa'ilka qaarkood iyagoo aan aaminsan in la takfiirinin marka waxaan leeyahay ninka leeyahay cabdiqaadir gruubkii jadiye ma difaacayo laakiin shakhsiyada cabdiqaadir ukaashe waa nin culimada salafi الرحمن الرحيم انت انا سؤال شو قد بين علاج كريها هي حسدك وحكى لها انو قوليها جديده لو يقانا waxaan isku haynaa احمدنا لما socdo waxba ka dhimay waxaan isku haynaa culimo cadeeyo kitaab laga qoray zacaama iyo raasa la isku hayaa iyo wax xisaabo macalinku san la soconin taa waxba ka dhimayano madhab la yaqaano macruuf weeye xilliga la asaasay baa la yaqaana 91 kiiba bilowday reer Yurub iyo Mareykan iyo reer Sacuud baa ka tashaday culamaa ulmadiina lama noogu magacdaray baa diyaariyay taqriir caalami ah oo ay u gudbiyeen dawladda Sacuudiga iyo gaalada loo qaybiyay bay diyaariyeen sida loo gumaado loona baabiin la asalafiya jihaadiya waa shay macruuf ah wadaadku wuxuu sanaa inuu ka hadlaa musiibo weey aniga waagi hadda u dambaysan Canada tagay mukhaabaraadka Canada markay wareysteen guddiga aan u diray la hadlay Soomaaliya waxay ku yiraahdeen madhabka uu xukaashadan doonayna anagu in muslimiinta laga dhaadhiciyo waxay gaaladu og yihiin way mukhaabaraadku Mareykanka iyo Yurub la socdaan hawlaha marka wadaad macallin ah oo xisaabo badan ogeyn uu ka hadli kara ma aha waa laga yaabaa in laba wadaad oo ashkhaas wax u dhaxeeyo laakiin mabda baanu ka hadlay jadiidiya la yadaabaan idhi madkhaliya loo yaqaana rabiiciya la yada jaamiya la yada maxamed aman al-jaami oo loo tiri way mabda iyo afkaar iyo aqaaid iyo masaa'il diiniyo oo mal isku haya usul bal isku haya wa jahmiyatun fi mas'alati al-iman jahmiyatun murji'atun fi masaa'il al-iman wal kufr way يعني مسائل واوين oo hadii loo dhabago nawaaqid noqon kara mararka qaarkood bay ku jiraan oo lagu haystaa kitaabna laga qoray salafkuna ka digeen ee culimadan u jeeday ka digeen Ibn Baas baa ka digay Sheekh Fawzan baa ka digay Uthaymin baa ka digay ummad oo dhan baa ka digaysa waa la yaqaanaa markay ninkaas ugu doonay kitaabta akhriyo anna masalada ku saabsan nimanka qaadiriye ee suufiye loo yaqaano waa musiibo iyo ayaan daray nasiib darro wadaad salafiya ama wahaabi sheeganaya ama inta dacwad tawxiid soo dhaxtaagnaa inuu yiraahdo masaa'il yar baan isku haynaa in la takfiiriyana ma qabo waa musiibo mabda ay aaminsan yihiin waxay ugu yeeray ummadda waa kufri iyo shirki ninka ka shaqeeyna gaal weey waa murtad kaafir billahi al-azim inda ulama dacwa najdiyya mabda nimanka qabuulin loo yaqaan ee hadda ahlu sunna wal jamaa la baxay
la dagaalamaya dacwada tawxiid ama nimanka wahaabiya loo yaqaan la dagaalamaya waa mushrikiin wathaniyiina laa khilaafa fi dalika cinda culamaa dacwa salafiya ruuxu wuxuusan aqoon inuu ka hadlayo musiibo wey taa macnaheedu maaha sheekh axmed baa murtada ama gaal ah mabda aan ka hadlaya anugu mabda ay nimanka aaminsan yihiin ama mudda ugu yeedhaan waa addacwa ila alwathaniya washirk ilaa cibaadati gayri illahi subxaanahu wa tacaala ilaa muwaalaati almushrikiin idan nimanka ayaga waxay ku jiraan waa kufri iyo riddo ayaguna murtaduun wey xukumka caamka marka afraad la gaara tacyiinka waa inoo dambayn laakiin ka taaifa ahaan baan xukumaynaa laga bilaabay sheekh cabdiwahaab ilaa yowmina hada dacwa manhajiyeen nool kulligood khilaaf kama qabaan nimanka in murtadiin yihiin gaalana yihiin ruuxuusan aqoonin inuu qaadaa dhigo musiibo weeye hawshaas yaan laisku lugoyn waxaan muran ka taagna muran yaan la gelinin adugu hadday qaadiriyo iyo suufiyo muslimiin fiican kuu yihiin annagu mushrikiin iyo murtadiin baan u naqaanaa in lala dagaalamana gaalada asalka ayagaa ka mudan hal xabad markaan ku ridna gaalada 9 in lagu ridaan aaminsannahay waxaa ummaddan yaan la lugoynin mabaadi'dana ha la yska soxo amaa sheekhu inuu aqoon leeyahay cilmi leeyahay anu ka niqaashi maayo nin walbaba intuu haysta isaga u taallaa masaladuna masale aqooneed iyo diin iyo kitaabbu akhriyaa ma ahayne mabda' baan ka hadlaayay macallimiintana ooga digaya waana ka digaya intaan noolahay sidaan ooga diga suufiyiyo qabriyo wataniin baan ooga digay meel kastoon joogo intaan noolahay waa mabda' haddaama ummaddana baabi'iya madhabka ay salafku yidhahdeen waa madhab yucjibu almuluuk bay aaminsan yihiin in haada diin bay dheen bacdu muluuk baa u bogay irjaaga ay wadaan nimankan ayaga ah markaasuu diinta waa diintii boqorada ay fahmi lahaayeen boqorada ay qancisaa saciid mujur wuxuu yaqaana yuhuud ulqibla u yaqaana nimankan ayaga ah yuhuud ulqibla buu u bixiyey xeelad shayka sucuurdaar ma gaaloobin kan weeye ha loo dhimriyo kan ha la sameeyo kufri cad bay qiil u raadiyaan kaan hadda kuu sheegayan kulahaa wax kastoo ninkaa sameeyo qiil baan u haynaabaa ka mid ah masaa'ilka